walaalayaal waxaynu isku baraarujinaynaa waqtiga aynu marayno ee qiimaha leh waa bishii Shacbaan ayaynu ku dhex jirnaa oo Ramadaan ka horeysa bisha Shacbaan waxyaabaha aadka u habboon waxa kamid ah in looga faa'iideysto siduu Nabi Maxamed uga faa'iideysan jiray calayhi salaatu wasalaam waayo cid aynu ku dayanaabeynu leenahay rasuulkeeniya wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam Usaama ibn Zayd asxaabiga la yiraahdaa su'aal weydiiyay wuxuu waxaan ku arkayaa bishan Shacbaan adigoo aad ugu dadaalaya soomka inaad soomto maxaa jira sabab u ah marka rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam bishan ilaahay wuxuu kor yeelaa amalka adoomaha marka anuguna waxaan jecelahay amalkayga in ilaahay loo kor yeelo la horgeeyo anigoo sooman sidaas uu nabigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam marka culimadu waxay leeyihiin saddex jeer baa la kor yeelaya amalka mar waxa weeye maalin walba siduu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix muslim iyo bukhari ba ku sugnaa waxa uu leeyahay tacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun bil-layli wa malaa'ikatun bin-nahaar waxay sukiin bedelaya habeenkii iyo maalintii malaa'ik oo amalka ka qoraya adoomaha oo warbixintii ka qaadaya inta aynu iska mashquulsanayno warwareegaynayno buuqaynayno hadlaynayno dhan walba u socono junuud ilaahay col dhan baa la inagu soo ururiyay oo shaqadoodu tahay inay inaga wax inaga diyaariyaan marka casarkii iyo subaxii bay isbedelaan qolo waliba warbixintooda ilaahay bay u geynayaan warbixinta ayaa laga qaadaya adoonka wixii uu shar sameeyay wixii uu khayr sameeyay wuxuu ku hawlan yahay adiguna isma ogin inaguna isma ogin baxar kale in ku jirnaa warbixinta labaad waxa la gudbiyaa usbuuc walba ama toddobaadkii walba hal mar nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo saxiixa wuxuu ku xusay abi hurayra warinayo maalin wal oo khamiisaba adoomaha amalkooda waa la rafciyaa ilaahay baa loo geeyaa falaa yuqbalu camalu qaadici raxim marka lama aqbale waa la soo celiyaa qofka qaraabada gooya amalkiisa riwaaya kalena wuxuu tilmaamayaa ma xadiid kale maalin wal oo khamiis iyo maalin walba isniinaba malaa'iktu warbixinta ilaahay bay u geeyaan amalka adoomaha amalkii adoomaha ayaa ilaahay loo bandhigaa hebel waxaas uu sameeyay hebel ayaa waxaas ay sameeyay halkaas uu maraya sharkiisu waa inta khayrkiisu waa inta ilaahay baa la horgeynaya subxaanahu wa ta'ala awoodda ilaahay ballaarana intaasoo khalqiga mid walba warbixin laga qaadaya oon ilaahay waxba ku adkaanaynin waayo isaga abuuray boo maamulayo arsaaqaya waxaan iyaga waxba laga dhaafaynin baa xadiidka kale uu nabigu ku yiri labada qof ee muransan ama colaadi dhaxtaalo ilaahay wuxuu leeyahay anziru haadayni hatta yasdaliha anziru haadayni hatta yasdaliha labada qof u kaadiya ilaa iyagu heshiinaya haddii cafisiga doonayaan iyagu horta ha iscafiyaan buu ilaahay warbixinta saddexaad waqtiga la gudbinayaana waa mid sanawi ah waa sanadkiiba mar sida uu tilmaamaya xadiidkan Usaame uu nabiga ka soo warinaya sheegaya Shacbaan in warbixinta ilaahay loo gudbiyo subxaanahu wa ta'ala faa'iidooyinka ku jira soomka la soomayo Shacbaan waxa kamid ah bay leeyihiin culimadu wuxuu noqonayaa ka tamriin ala siyaam Ramadaan qofkii oo si tababaranaya bishii Ramadaan oo wuxuu la sii qabsanaya qofku soomkii oo soomkii baa u sii macaanaanaya naftiisi baa u carbismaysa isagoo soomku caadi u leeyahay ka cabsanayn ay Ramadaan soo galaysa horay buu ka sii bilaabaya faa'iidooyinka waxa kamid ah bisha Ramadaan ee soo socota soomka Shacbaan wuxuu uga dhigan yahay kal muqaddima shay hordhaca gogol dhiga oo waynagana aragno waxa la socda salaadaha faralka ah sunnayaal ka horeeya iyo sunnayaal ka dambeeya marka waa sunnihii ka horeeya salaadoo kale ayuu uga dhigan yahay sida daraadeed bay dadkii cibaadada badnaa iyo ahlul quraanku aad ugu dadaali jireen waxa uu leeyahay Salaamah ibn Kuhayl kaana yuqaalu shahru Shacbaan shahru al-Qurraa waqtigii salafka waxa loo yaqaanay bisha quraada dadka quraanka akhriya bishooda loo yaqaanayo
qur-aankii ay soo yara ilaaween ama wakhti u waayeen ay rabadaan u diyaarsanayaan shacbaan bay aada u sii akhrii jireen habeenkii oo ay ku cibaadaysan jireen camru bnu qays almalaa-in isaguna waxa uu ahaa idaa dakhala shacbaanu aqlaqa xaanuutahu watafaraqa liqiraa'ati alqur'aan imaamkaasina mar hadday shacbaan soo gasho dhaqankiisu wuxuu ahaa dukaankiisu xidhan jiro qur-aanka ayuu u bixi